another banger. Baby, calm down. Yo, this your boy. Zurich xoghayaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa Arbacadii la kulantay dhigeeda Shiinaha waxayna ballan qaaday dadaal lagu maareynayo khilaafaadka iyo ka hortagga tartanka inuu noqdo wax kasta oo u dhow colaad iyadoo labada waddan ay isku dayayaan inay dhalaaliyaan xiriirka. Kulankii ugu horreeyay ee fool ah ee Yellen uu la yeeshay ku-xigeenka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Liu waxa uu ahaa xiriirka ugu sarreeya ee labada dal tan iyo markii madaxweynayaashoodu ay ku heshiiyeen bishii November ee la soo dhaafay si ay u raadiyaan dhinacyada iskaashiga suurtagalka ah. Liu ayaa dhankiisa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka wada shaqeeyo sidii loo raadin lahaa mowqif midaysan oo ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Si kasta oo ay xaaladuhu isu beddelaan, waa in aan mar walba ilaalinaa wadahadalka iyo isdhaafsiga, ayuu yidhi. Kulankan ayaa imaanaya iyadoo dhaqaalaha Mareykanka iyo Shiinaha ay ku loolamayaan dhinacyo kala duwan, balse caqabado isku xiran oo ku wajahan ganacsiga, tiknoolajiyada iyo kuwa kale. Yellen, oo hadal furitaan ah ka horjeediyey saxafiyiinta, ayaa u sheegtay Liu, in kasta oo aan leenahay meelo aan isku khilaafno oo aan si toos ah u gudbin doono, waa inaanan ogolaanin isfaham la'aanta, gaar ahaan kuwa ka yimaada isgaarsiin la'aanta, inay si aan loo baahnayn ay uga sii daraan dhaqaalaha laba geesoodka ah iyo xiriirka maaliyadeed. Waxay sheegtay in labada dal ay mas'uuliyad ka saaran tahay inay maareeyaan khilaafaadkeena oo ay ka hortagaan in tartanku noqdo wax kasta oo xitaa khilaaf u dhow. Labada dhaqaaleba waxay leeyihiin caqabadahooda. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa dib u furmaya kadib markii uu soo noqday COVID-19 uu dilay 10,000 oo qof uuna xiray ganacsiyo aan tiro lahayn. Mareykanka ayaa si tartiib ah uga soo kabanaya sicir bararka sare ee 4 sano ee la soo dhaafay, wuxuuna ku socdaa waddadii uu ku gaari lahaa saqafka deynta ee qaanuuniga ah, isagoo dejinaya isku dhac siyaasadeed oo la filayo inuu dhex maro Koongareeska Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Arrinta deynta ayaa ah mid xiiso weyn u leh Aasiya maadaama Shiinaha uu yahay kan labaad ee ugu weyn ee haysta deynta Mareykanka. Waxaa sidoo kale jira duulaanka Ruushka ee Ukraine, kaas oo caqabad ku ah kobaca dhaqaalaha adduunka, waxayna ku kaliftay Mareykanka iyo xulafadiisa inay ku heshiiyaan qiimaha saliidda ee Ruushka si ay uga aargoostaan, taasoo Shiinaha ku riday meel adag oo ah saaxiib iyo xulafada dhaqaale ee Ruushka.